kadib markii xalaytu fiidnimadii qarax xoogan uu ka dhacay ilinka hore ee hoteelka Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa gudaha u galay lisma ku dhow hoteelkaasi rag hubeysan oo la sheegay in ay rasaas ku dileen dad shacab ah oo ku jiray gudaha hoteelka iyo sidoo kale goob lagu qaxweeyo oo ku dhagan hoteelkaasi halka oo lagu magacaabo Hilaac UK oo ah baar dadku ay isugu yimaadaan warar aanu helnay ayaa waxa ay sheegayaan in rasaasta iyo qaraxyadaba in ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya ilaa iyo 15 ruux halka dhaawacyaduna ay gaarayaan 60 meeyo sida ay shabakada warbaahinta Shabeelle u xaqiijiyeen ila ku sugan goobaha caafimaadka ee la geedadkii dhaawacmay sidoo kale ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayayay in ay badbaadiyaan dadka shacabka ah ee ku go'doonsan dhismayaasha rasaastu ay ka socoto iyada oo sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in ay jiraan raggii hubeysnaa ee gudaha u galay xarumahaasi qaarkood in ay gudaha xarumaha ku qarxeen sida hoteelka Maka Al-Mukarrama dhismaha ku dhagan iyo sidoo kale guri dabaq ah oo u dhaxeeya hoteelka Maka Al-Mukarrama iyo hoteelka Wardheer ee magaalada Muqdisho mid kamid ah dhalinyaradii ka agdhawaa dhismayaashaasi rasaasta iyo qaraxa uu ka dhacay ayaa Shabeelle u faahfaahiyay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda saaka ay ku waabaristeen qaraxku wadlaamigu ka dhacay qaraxi marka aniga agteena soo maray nin baa ka shaqeeyay gaariga culeys buu ahaa askari ayaa ka shaqeeyay oo meel ka soo baxay military xabadu ku bilaabay dhax gaarigii sidii anaga ilaahay nagu mootiyay meesha joognay waana dhaafay xabadii oo ku socotay askariga ku waday laamigu la koray waxay daqiiqad ma ka soo wareegin qaraxa dhacay irkidana dhulkii oo dhan ay qabsadeen waxna ma arkin anaga oo wax arki weyn waxa indhaan wax ku aragna ma leen wax dad waa ku dhinteen meesha dad waa ku dhinteen laakiin anaga waa tagi weyn waa istaagi weyn meesha wax ku dhac anaga ma nafteena halis gashay guriyeen ugu soo dumin caqabad aad iyo aad u weyn baan kala kulanna ma garad caqabadaas baatana waa anigoo qarax nagu dhacay argagaxsan aruurta ma qaniin meel walba raadi ilmo ilmiyaa soo heshanay oo dhibaato weyn ay dhacday xabadii laga seexan waayay dad badan waa ku dhinteen meesha oo la yaqaanay wax ku dhaawacmay marka waa ka Dr. Cabdulqaadir Cabdisalaan Xaaji Aadan oo ah madaxa gaadiidka gurmadka caafimaad ee ambulance loo yaqaano Amiin ayaa waxa uu shabakada warbaahinta Shabeelle saaka u sharaxay xaaladda dhaawacyada tirada ay ku ogaayeen iyo waliba dadkii dhaawacyada ahaa ee geeriyooday inta ay xaqiijiyeen iyo tirada ilaa hadda saaka ay hayaan in ay goobtaasi ku dhinteen iyo kuwa dhaawac ahaan loo geeyay xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho runtii dhaawac xalayto wuxuu ku bariyay ilaa 40 qof saaka numberka uu batay wuxuu marayaa 60 qof ayuu marayaa weli waxaa jira dad ku hoos jiray dhismayaal dumay ayaa jira oo weli laga soo saarin runtii dhaawac inta way leeyihiin dhaawac fudud iyo dhaawac culus inta way leeyihiin qof asagoo dhaawaciisa fududaa ayuu waqti ka bacdi ka sii dari karaa waxaan wax la qiimeyn kara ma ahan waxaan ma tuuray qof ku dhacdo ma laakiin waxa weeye dhaawacu yani qaraxu wuxuu ku dilaa aariyo wuxuu ku dilaa sir wuxuu ku dilaa nooc badan ku dilaa qaraxu marka ma waxa qofku hadduu maanta fiicnaan birta xaaladdiisa ay xumaato laakiin dhaawacu mid fudud iyo dhaawac culus labadaba uu leeyahay waa xala meesha ka dhaceen wadada Maka Al-Mukarrama guriga ku dhagan xibaar Hilaac iyo kuwa kasoo horjeeda dad ku waxa weeye dad wadada maray iyo kuwa baabuur saara iyo kuwa fadhiya inta way lahaayeen xarumaha caafimaadka oo isbitaalada waaweyn ee ay ka mid yihiin isbitaalka Madiina isbitaalka Digfir Daarushifa iyo goobo kale ayaa laga dareemayaa mashquul aad u badan maadaama boqolaal dadweyne ah ay isugu tageen halkaasi iyada oo dadku ay eheladoodii ka baadi goobayaan dadka dhaawacyada ah iyo kuwa dhintay intaba saraakiil ka tirsan qaybaha caafimaadka oo Shabeelle ay la xiriirtay ayaa sheegay inay wadaan gurmad loo sameynayo dadka dhaawacyadu ay soo gaareen dhinaca kale saraakiil ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya ka tirsan ayaa waxa ay Shabeelle u sheegeen in aanu jirin warcad oo dawladda Soomaaliya ay ka bixin karto weerarka hasaatee waxay sheegeen inay wali juhdi iyo dadaal dheer ku wadaan sidii loo badbaadin lahaa dadka la aaminsan yahay inay dhismayaasha wali ku jiraan kuwaasi oo dawladda Soomaaliya ay ciidamo gaar ah u dirtay iyada oo ay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo raggii hubeysnaa wali goobta ku wada sugan yihiin inkastoo dawladda Soomaaliya aysan soo saarin warcad oo ay ku sheegayso xaaladda dhabta ah ee ka jirta goobaha weerarka lagu qaaday xarakada Al-Shabaab ayaa war ay soo saartay xalayto waxa ay ku sheegteen mas'uuliyadda weerarada ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo ay sheegeen in taargetkoodu uu ahaa hoteelka Maka Al-Mukarrama oo ay degan yihiin sida ay sheegeen saraakiil dawladda federaalka ka tirsan iyo mas'uuliyiin kale inkastoo dadkii inta badan ku dhintay halkaasi iyo kuwii dhaawac ah ay u badnaayeen dad shacab ah sida ay wariyaasha ku soo arkeen xarumaha caafimaadka oo ay booqdeen